بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نبي صلوات ربي والسلام عليه وحاك الصغر حديث كأبي هريرة ورنايه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. من لم يدع قول الزور قفك أن كتغين مركو سومية هاي قول الزور beenta iyo afxumada iyo xumaanta walcamal bihi iyo inuu ku camal falo oo marqaati been ah uu noqdo, baatilka uu ka shaqeeyo, xumaanta uu ka shaqeeyo, waljahla iyo jahliga inuu qofka ku gardaroodo ama uu sameeyo dulmi ama xadgudub uu sameeyo. falaysa lillahi xaajatan أن يدع طعامه وشرابه. فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إلهي سبحانه وتعالى حاجة وحدا وكلي غفكاسي أن يدع طعامه وشرابه إنه كتغ عنتديسا أما عبتان كيسا مرة. الله سبحانه وتعالى وحج علي هيدتك وناكسن سيب رمضان كما كان لوجره بشان وبش خيرك وبش وناجة. صونك وإناد إلى شتاء صونك هذا وإناد إلى شتاء هدي الذنوب أي كاد عضه وأما هنا قضان ذنوب أديكو الظلمين يسيدو قلبي هذا الظلمين يسيد نفط هذا إن حمان سميسو دنبي وحياء ألقشو أما ضدك كلا إناد حمان كشيكتو أما بين أد شيكتو أما هو قردرو ضدك كلا، فهذا كله لا يجوز. وحصل لما بنانا فيه هذا الشهر المبارك بيشان وبالبركة سن بيشان وبيش استغفارت ينحريسته يعتق من النار. فكيف سيدامر كون قنيسة للمؤمن قفك مؤمن كأه إن وذنوب يمعاسي قالوا في نهار رمضان حتى في لياليها. يعني انت رمضان قفك إنه الذنوب قالوا تتقرأ وحيقوها يستامرك maadaama markaad sooman tahay kaliya soonkaada aad ilaalinaysid, habeenkii dhib ma laha. habeenkii qofku wuxuu rabo sameynaya oo dambi ah, wuxuu rabo ku xadgudbaya, internetka dhalinyarada gelayaan, wuxuu rabo fiirsanaya. hada kulluhu laa yajuuz ikhwati fillah, ma banaano. bisha waa bil barakaysan. haddii marka dunuubta qaar aad iska kari weysid ama qofka uu yahay qof mudmin ah oo arrinkaa ku xel dheeraaday, istighfaarta badi استغفارته بدي oo ilaahay subxaanahu wa tacaala markaad baryaysid ilaahay markasta waxaad ka baridaa inuu ku dambi dhaafo iyo dambiga inuu qalbigaada ka madooweeyo. mushkiladu waxa weeye in aadan ka faa'iideysan waqtigaada fi hada shahr mubaarak. xumaanta oo dhan ka dheerow, indhahaada aysan xaaraan arkin, afkaada aysan ku hadlin wax kale, dhagahaada ka ilaali xaaraanta, heesaha iyo waxyaabaha oo kale ka fogow oo waxaad ku dadaashaa khayrka ku dadaal. man lam yadac qawl الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إلهي وحدا وكاليه إنا كتبت عنتظي عبتان كماله، لأن الصونك اللي مجدين عنتظي عبتان إنا كجوسة كليه وحالو جدي لعلكم تتقون. إنا الله سبحانه وتعالى كبقتان waxaad mudantihiin inaad alle subxaana wa tacaala ka baqataan. ilaahay aan ka cabsano, soonkeenana aanu ilaalino. aad baad u mahadsantihiin. baaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh.